والله horta marka ugu horeysa bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa dhamaantiin midda xigtana waxa waaye maxuu ahaa suuragal ma aha dawladda awalba dagaalka waa ay ku jirtay shacabka shacabka ay ahaayeen dadka aan runtii si xoogan boqolkiiba boqol u soo bixin oo aanan maxuu ahaa baqdin ha ahaato arrimo kale ha ahaato kulliba marka maxuu ahaa shacabkii hadda waa ay soo bixeen ciidamadii dawladda waxaan aragnaa iyagu inay hadda horay gadaal u socdaan galgaduud hadhihin maxuu ahaa mudug hadhihin hiiraan hadhihin marka ilama aha anigu inay ka gaabinayso taagtiig iyo qorshe iyo waxyaabahaas waa meeshooda laakiin inay sideedaba faraha ka qaado ama aysan ka qayb qaadan wax dhici doona ilama aha laakiin haddii dawladda ay ka qayb qaadan weyso shacabkana ay kaceen taageeridna ay sii weydo shacabka maxaa ku dhici kara soo niyad jab ma imaan karto meel loo noqdaana muuqan waxaan niyad jaba ninkii meel u muuqatee u laabtay u muuqatee laakiin nin arkaya dadkiisii oo la leynayo caruurtiisii oo la leynayo xoolihiisii oo la qaadanayo isagii oo la dilayo waayeel hadhihin caruur hadhihin qarax hadhihin dhibaato hadhihin ninkaasu qaabu ku niyad jabaahu maba jirtaba shacabku waxaan ognahay 90kii shacabka kacayo dawladda ka hor yimi dawladda iyo shacabkana dawladda waxa xoog weyn oo awood badan waa shacabka waay marka shacabku mar hadduu gadoodo oo uu kaco runtii dawladdu hadde waxay noqon doontaa oo kaliya maxaa la yiraahdaa inay kabto wixii ka dhimane shacabka isaga ka go'an tahay dhulka dad baa iska leh dadka iska leh ayaa la difaacanaya nin meel ka yimid aadan aqoon iyo wuxuu qabo inuu deegaankaaga adigu kugu xukumo gurigaaga gubo ceelkaaga gubo oo wuxuu ahaa dadkaaga laayo oo xoolahaaga qaato xagee lagu arkay ninkaas in la iska celiyo maaha diin kale ma laha weligeed ba lagu laabo marka xilligan maxaa ku soo beegay in shacabka ay kacdoonkan sameeyaan shacabka kacdoonkan inay sameeyaan dabcan waxaa dhinaca marka la yiraahdo hiiraan waxaan ognahay dadkaasu inay dhibaato dad maata waxba aanan geysan midalan waxaa jirtay in ay nin maxuu ahaa nabadoon ahaa oo aanan arrimahan iyo waxan iyo maamul iyo dawlad iyo waxba aanan shaqo ku lahayn ay maalin dileen ayagoo ku eedeynaya inay maxuu ahaa yani ninkaas inuu dawladda la shaqeeyo yani waxyaabaha cajaa'ibka leh ayaa ahayd waa cali dheere macalin maxamuud ayaa la yiraahdaa ninka inta markay dhacday dadka hadde waxa waaye wixii ahal iyo qaraabo waa gadoodeen waxay ugu tageen meesha la yiraahdo boocay ugu tageen nimankii hadde inay hadde iyaguna sida loo xanuunjiyo si lamid inay xanuunka u tusaan oo ay ilaa awal banaanka la kala joogay hadda la isku masaqajaamaynin hadday dhibka hadday geysteen oo maxuu dhinacii hadde aarsi loo tagayo maxuu ahaa la soo laabtay kibir iyo batrad ayaa timid oo ah aaway odayaashii keena nimankii dagaalka nimankii boocad tagay hala keeno taasaa kicisay dadka ma fahamtay nimankii hala keeno hala soo dhiibo nimankii boocad tagay na soo weeraray annaga oo adiga waxaa dishayaa ku xisaabinaya على كل حال ماشي سكب بلابتي باش وصيف في أيونا ضد اللاين على باللابن إني جبان ومدي واحد والله كعي ولا هذه ضد كديان كيسكالها نوهرة يمروا بالديان عدي ودجال أي نقطة kacdoonka hadda shacabka wada ciidamada ka barbar dagaalamay oo garab siinaya waxa soo noqday ama mar walba soo noqda in ciidamada deegaanada ay la wareegaan shabaab ay ka bixiyaan inay ka soo baxaan iyadoo shacabka deegaanadaas ay soo dhaweeyaan ciidamada markay la wareegaan deegaankaasi gacan ku heyntiisa haddana mararka qaar waxa dhacda in deegaano badan ay soo baneeyaan bal arintaas maxaa keenaya والله مربى تاكتيكي وحي الاستعمال ومشهده maxaa soo haraysa qabahaan ciidanka marka la yiraahdo oo deegaanka iyo wax la qabto ciidanku hadee iyo shacabka badan shacabka wuxuu kaalmo u baahan yahay markuu helo dhulkiisa shacab aanan shalay shaqo ku lahayn oo isaga xoreysan dhulkiisa ayaa shabaabka laga saaray ciidamadu ka saarayaan ciidamadii marka waxa waaye dalkii oo idil iyo tuulo kasta iyo deegaan kasta hadda ma taagnaan karaan
de markaasaa muxuu ahaa ay nimankan ayaguna helayeen fursad ay ku soo laabtaan laakiin hadda shacabkii waayo waxa ka horeeyaba ciidamada dowladda oo difaacanaya marka inay ciidankaanu hadda meeshii kaalmo looga baahan yahay inayna aadaan haddaba wax loo jiga waayo soo ma ahahe in ay kusii nagaadaan haddii shacabka soo dhoweeyeen ciidankii ay garab siiyeen hadday ayaga ka tagaan soo cabsi badanayna marar badan ayay sheegaan shacabka markay ka noqdaan ciidamada ay ka cabsanayaan in mar kale dadkii hore u dhibaateynayeen dib ugu soo laabtaan soo shacabka dhibaato ma ku ahaataa deegaanadaas ku dhaqan fiiri shacabka mar hadduu asaga yahay waxa kacay fiiri xabadda waa lagu kala horreeyay ma ogtahay ciidamada qalabka sida oo gadaale ka yimaadeene shacab gadoodsanaa markii hore dadkaan inay iska celiyaan u dhaqaaqay wixii ay heleen ay kaalmo ah dowladda xigta ka soo gaarayna haddaba waxay noqdeen waxay markaas yacni ahlan wasahlan soo dhoweeyaan oo kana faa'iidaystaan laakiin shacabka istaagay shacabkaana muxuu ahaa yacni in difaacanaya ciidan la'aan iyo ciidan military oo howlgalaya oonan jirin ayayna deegaanadooda sida maxaas iyo dhulka iyo kulli iyo ayay kasoo sifeeyeen hadda muxuu ahaa shacabkii marka haddiiba la arkay inayba ayagii socdaan de ciidankii waa ay kaalmeeyeen maahe de muxuu ahaa haddana shacabku kuma dagaalamayo ciidana idinla jooga haddii la helo ahlan wasahlan haddii kalena dagaalka meel loo noqdaa ma jirto sida horeba u yiri waxa weeye muxuu ahaa dad loogu yimid gurigoodii hantidoodii xoolahoodii ceelashoodii aqaladii u dhisnaa yacni muxuu ahaa yacni la yiri muslimba maahidiina la yiri waxa dambe oo dhowranayaan maxay tahay dadkaasu marka meelay u noqonayaan malaha wax celinaya malaha hadday ama guulay ku noolaanayaan ama jannay aadayaan intaasay aaminsan yihiin oo ay qabaan marka dagaalka ka socda hiiraan sidaan ognahay waxaa xooggiis iskala hal beel oo keliya maxay tahay sababta beelaha kale ee deegaanadaasi ku nool eese xoogga u saarayn dagaalkaas wallaahi waxa waaye dee kolley hadda beesha iyada dagaalka ku jirta gashay ka muuqata waxa waaye hadde waxaa soo karay xanuunkia soo karay dabcan beelaha kale waxaa laga yaabaa inay diyaargaroobayaan inay kala daadsanaayeen dhinac walba laakiin intaan anigu ka warhayo haddaba diyaargaroob badanaa socda waana ay muxuu ahaa waa ay dhaqaaqayaan mas-uuliyiintoodii siyaasiyiintoodii xildhibaanadoodii saraakiishoodii iyo wixii oo idil degaanadii iyo dhulkii ay tageen abaabul ay wadaano dhinacaana inay nadiifiyaan hiiraan laba maahana waa mid waana la wada nadiifin doonaa laakiin culayska shabaabku waxa ay saarayeen dhinacan barigu ahaa inay dhibaateeyaan oo ay xib ku hayaan oo maquuriyaan dee dhinaca haddii laga sifeeyey hadda dhinacii kalena dee muxuu ahaa iyadana waaba sahlanaanaysaaba maamul goboleedyada waxaa lagu eedeynayaa ama loo jeediyey dhowr mar in ay ka gaabiyeen gacansiinta dadka kacdoonka u kacay inay shabaab iska dulqaadaan wallaahi kolleyba anigu inta aan hadda ogahay hirshabeelle 100% si fiicana loogu dhaqaaqay dhinaca shabeellaha dhexena waa sidaas lamid ah yacni muxuu ahaa ciidamadii iyo kulli iyo waa baxeen iyo dadkii muxuu ahaa deegaanka ahaa muxuu ahaa de maamulka hadda hirshabeellena de madaxweynahana abaabulka dhinaca shabeellaha dhexe ayuu waday cali guudlaawe de madaxweyne ku-xigeenka yuusuf dabageed isagoo de beledweyne joogaayo hadda halkaas asaga iyo cali jeyta iyo iskaalmaysanayeen oo ayaguna abaabulka dhinacaanay wadeen marka hirshabeelle horta lama dhigi karaba muxuu ahaa eedaynta ay looma soo jeedin karo ninka la yidhaahdo lafta gareen sidaan ognahay dadaal fara badan iyo howl fara badan iyo kulli ayuu wadaa ayaga naftooda waa ayaga dhaqaaqay oo bilaabay galgaduud sidaasoo kale waa ay socotaa marka ma anigu diyaargarow waa meesheeda ilaa dagaal waa dagaalka marka maamul iyo nidaam iyo waxaas lagu galayo hadda waxa waaye waa culus yahay ma aha maleeshiyaad shacabahoo kacay oo gaagaxay ma aha يعني ومركا واحد باهان إن لا يسوق قرشة ولا أبابل وكده لو دقائق لكن أنت أنا وجهي أنا كوفر قلبين عندهن ماشى اللي يرهدو قلب يوجع عندهن ماشى اللي يرهدو جبلان عندهن كل ديار جروج واسع وحرام علينا مثلا حد شو وقت يدو صار دمار. ما عنده واحد حاجة أرينا كهذا الشيء وقصة سنة دولة قدر يو الشباب. والله أردت أسوتتون كده ويلجيس بواجري إن قدر لده وحنقنا أنه صيدا أي لمن كان حجرك يعني مرة والبعرمه هذين إن ضربت كل واحد وحقيقة زفته إن أفغانستان
يعني involved ugu ahayd oo ay hadda ku maxuu hawlanayd waa ay jirtaa dabcan de hadda maxuu argagixisada يعني ninkii hadda mar walba shirar uu qabanayay Talibanka isugu yeeray meesha la yiraahdo maxuu ahaa dhinaca iyo Doha oo isugu yeeray maxaa la yiraahdaa hatta nimankan dhinacan maxuu ahaa xagjirka ah Soomaalida يعني midkoodii maxuu ahaa isaga yimaado howlaha ama raba inuu ka baxo dawaayigi maxuu hore ka dafayay khadar iyo meelaha ay la aaday marka dawladda khadar siyaabo badan waxa waaye u shaqeysaayo kulliba maxuu ahaa broker wax la yiraahdo dulaal siyaasadda caalamka oo idin laga wada dulaalay waxa jira hadda waxa weligeed involved ku ahayd marka inay Soomaaliyana hadda maxuu ahaa sidaas oo kale ka damacdo يعني waxbaan isdhaxgelinayna waxbaan heshiisiinayna annagu heshiis ma ogol sababtoo ah waxa weeye nimankaas wayna laayeen wayna dileen waxba nooma reeban maanta ninkii saa aniga ii dilay in la yiraahdo waa la heshiinaya oo birito wuxuu ahaa yani wuxuu ahaa dawladii wixii sabab ku aaminaya anigu ninka daahir ma bahaba wallahi dawladda khadar waa fara badan tahay dawladda khadar intaan ogahay anigu ay fara badan tahay waana la shaqeynaysaa dhinacyada kala duwan oo isahay oo dhan ay la shaqeynaysaa waxaasuna wax dalkan iyo dadkan dan ugu jirta oo ma aha marka su'aasheeda ugu dambaysa gulufka ka socda Shabeellaha Dhexe sidee u aragtaa iyo abaabulka ka socda Shabeellaha Dhexe kan Hiiraan muxuu ka caawin karaa hadii isbiirsadaan horta Shabeellaha Dhexe abaabul waa dhaafay arinku oo hadda howlgal ay maraya ciidamadii wixii waa baxeen oo wuxuu ahaa deegaankii iyo dhulkii aadeen inta aan la socdo muxuu ahaa hadda state-ka waa laba dhinac xuduudda dhinaciisa kale ninka inta u tallaaba soo abaabula haddana kugu soo laabanaya dabcan waxaad u baahan tahay deegaanka maxuu ahaa ciddii deganeyd inay ayadoo hawshaas inay gasho marka waa aad isu kaabaya aad iyo aad 100% waa ku kalsoonahay nimanka haddaba deegaano meelo ay ku jireen oo ciidamo iyo wax ku haysteen iyo wixii waa ka baxeen waa ka carreen markay maqleen ciidamadu waa soo dhaqaaqeen marka saad daraadeed ayaa muxuu ahaa ay u tahayba yani muxuu ahaa wax muuqda in dhinacan Shabeellaha Dhexe mar hadii laga soo dhaqaaqay Hiiraanna awalba hawshu socotay inuu state-kaas 100% nadiif ka noqonay nimankan arxan laawayaasha ah Soomaaliyeed kale intana inay kaalinta soo buuxiso ayaan ka sugaynaa